السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. xubuubi khardal waa midhaha Soomaalida qaarkood ay u yaqaanaan sakaraxuud inkastoo waddanka Hindiya iyo wadamo kale looga yaqaan magacyo kala duwan waana midho aan la soo koobi karin waxtarka ay jirka u leeyihiin waxaana midhahan ku jira faytamiino badan oo jirka muhiim u ah iyo macaadin ay ka mid tahay macdanta magnesiumku waxtarka ay jirka u leeyihiin waxa ka mid ah waxay yareeyaan xanuunada ku dhaca sanbabada waxaana lagu sheegay midhahan inay aad u xakameeyaan kansarka ku dhaca meedherada sidoo kalena waxay xad u yeelaan xanuunada ku dhaca kala goysyada jirka iyo murqaha waxaanay sidoo kale yareeyaan baruurta xad dhaafka ee dhibka u geysan karta qofka jirkiisa waxaanay meesha ka saaraan calool istaaga joogtada ah waxaana yareeyaan igfashanka ku dhaca maqaarka sare ee jirka dhinaca kalena midhaha loo yaqaan saliidka waa midho sanadihii u dambeeyay aad u batay isticmaalkoodu haddaba marka laga yimaado faa'iidooyinka caafimaad ee midhahani ay leeyihiin waxa sidoo kale laga digaa in aan aad loo badsan isticmaalka midhahan iyadoo dadka lagula taliyo inay xaddi aad u kooban ka qaataan midhahan sidoo kalena waxa laga digaa in waqtiga la isticmaalaya aanu badanin iyadoo waqtiga ugu fiican ee la isticmaalo lagu sheegay ugu badnaan week ama 2 week waxa sidoo kale iyaduna xusid mudan in ruuxa dumare uur kale lagula taliyo inaanay midhahan isticmaalin iyadoo aan la tashan dhakhtarkeeda haddaba faa'iidooyinka midhahan laga helo waxa ka mid ah waxay jirka ka saaraan igfashanka sidoo kale waxay u fiican yihiin beerka iyadoo daraasado badan oo la sameeyay ay sheegeen in dadkii daraasadaha lagu sameeyay 30% ay sheegeen inay kaga caafimaadeen xanuunada beerka sidoo kale isticmaalka midhahani waxay yareeyaan hoosna u dhigaan xaddiga subagga ee dhiigga raaca waxa sidoo kale cilmi baarayaashu ay sheegeen in isticmaalka midhahani 63% ay ka hortagaan kansarka ku dhaca maqaarka sidoo kale isticmaalka midhahani waxay dawo fiican u yihiin dhammaan xanuunada ku dhaca uurku jirta iyo calool istaaga soo noqnoqda sidoo kalena saliidda laga sameeyay midhahani waxay u fiican tahay caafimaad qabka timaha haddaba qaabka loo isticmaalaya waa in waxyaabaha aad cabayso sida sharaabka shaaha iyo biyaha aad ku darto xaddi aad u kooban oo midhahana adigoo midhahana ka dhigaya kuwa ridqan oo budo ah